هلو ها مي مغلسة اوكي dadku marka xogaa waxa u malaysa dadka horta waa kuwan weydiiyaysan yihiin hadda yarkaan aad u jeedo feere gacantiisa ma aragtaasa ha yarkaas muxuu ahaa maxaa ku dhacay yarkaas ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiigii baa ilaahay ku yaala hadda waa kan mar dhawaa hadda la garaacay asigaa kula hadlaya waa kan dhegeyso igu dhiib baro hadal halo magaca walaal magaca ii sheeg cabdinajiib maxamed walaal cabdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sanaa joogta halkaas walaal sanad baa jooga reerka xubeyimahaya walaal meesha ku dhigto cuntada iyo musiga birbaali la dhacaa haddaa arkilaad nolosha ku jira nolosha dhan baa nicleed walaal wejigaa ku aadi kaamirada xoogaa mugdiga ka fogow iftiinka baltag miya aragtaa ha magacaaga ii sheeg wallahi cabdinajiib maxamed walaal wallahi bilaa talaata maali cunto limasan cunto macun anoo saasa birla saddexa korkayga fiir oo wada barbarananahay waa gad goormee timid adiga libiya goormee timid yaa walaal goormee libiya timid sideed sanad baa jooga libiya sanadaa joogtaa mana liisii deynaa bilaa maalin kasta la sii dhacaa waa hagaag waa mahadsan tahay yaa kaloo jooga meesha dadka oo dadka kale bal waxaan rabaa wejiyadooda iyo dumarka oo kale waxayna hal mar midaan ku tusaa oo yacni carabta inay dhagax dul saareen ee dhaheen yaan laga qaadin ilaa iyo yacni maaragtaa berito subaxaan ka imaano ma garatay maxaa dhagax loo saaray wiilkan waaye waxay dhaheen muddo sanadoo nala joogaa ilaa hadda lacagta nagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yani maaragtaa lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama teleefon ay kasoo diraan ay dhahaan yani lacag dhagaxa laga qaado wiilka soomaali ma la hadli karaa hadduu soomaali yahay ha waa la hadli kartaa halo xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray walaal sideed kun dollar liga rabaa ilkii baa liiga riday gacan baa awrka ahaa dhagax baa lay saaray aad baa u dilnahay meeshan waxaan joogaa muddo 11 bilood ah wakaasa waa soomanahay ilaa hadda ma afurin wakaa biyo cad xataa ma cabin mar walba waana la dilaa ilkaasaan waana la dilaa ilkiiga kuwaasa samarti kariyaasoo muuqayin subxaan allah samarti waa mahadsan tahay wakaasa ilaa haddana ma afurin waana sabnahay maxaa imise maalmo dhagax ku saaraya marka yaa walaal dhagax meeqa maalmo ku saaraya dhagaxaas dhagaxa saddex maalmo buu saaraya waa hagaag igu dhiib yarka niyow adaa u dhexeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in lasoo fududeeyo dhagax ma laga dejin karaa wallahi abti horta niyow aninka yani meesha iska leh anaga horta amarkiisaan sameynaa wax ka badan ma sameyn karno adiga u dhexeeya haddii aad la hadasho aad tiraahdo lacagtaasi waa la bixinaya waa la damiinanaya anaa kula hadlaya lacagta anaa damiininaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas haddii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaya dhagaxa ka deji oo aniga aan damiinto yani xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta aniga dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waayo meeqa maalin lagu haddii aan nahno isbuucan lacagtaas lagu bixinaya imis wey lacagta wallahi hadda canugaan 8,000 dollar laga rabaa muddo sanad ku dhowna wuu joogaa ma garatay waa ta adi ma damiinan kartaa dad badanna oo soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan hadda haatan ii muuqda dhammaantoodii ma soomaali ba waxaan dhan wax kulli waa soomaaliniyo kulli wax yani aan soomaali ahayn kuma jiro kulli waxa soomaali ahayn kuma jiro aniga macnaha hadda yani programka adiga ku diyaari in dadka aniga yani wixii raac ligu sameeyo programka inaan sameeyo haddii la ogaado yani ma aragtaa aniga bas ay dhamaanaysaa
انت marka habeenka xerada kaliya joogo yani maarata waxaan rabaa idin sameyn karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar ay idin sameeyo anugaan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aan maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay waa hagaag hadda ma kula joogaan liibiyaanku ma joogaan aan filaya xarunta wax hadda yani liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waa kan hadda waa keenay soo ma jeedid haddii hadda gaarigooda soo yeero waan qabanaa meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan ka dul saaraa si yani maaragta hadhow yani aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabihiisa magaciis bal hooyada magacee siraad farax raage xagee ka timid walaal magacaaga igu celi magaaladay ka timid adi magaaladay kasoo tahriibta walaal waa hagaag waxaad ii sheegtaa imisa maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah oo lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laiga soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa 8 bishii 8 baa soo galay Soomaali garan haye bishii 8 hadda muddo 12 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan u saaran yahay Soomaali garan waa gartay Ramadan ku bilaabay ilaa adirtaan xawna lama sii wani la dilaa afar la taga sacwaan la dilaa liibiyaan baa soo gala ulbana lagu garaacay ilkayga liiga riday nabraan badan baa ugu yaalo fiilooyin baa lagu garaacay koronta xataa lagu qabtaa wallahi Soomaali garan waa maasan tahay igu celi ninka kale idin dhaxeeya liibiyaanka iyo oo igu dhib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo haddii dumar ku jiraan gabdho Soomaaliyeed miyaa ku jira dumarkii aaway dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen damba isku daya in ay yani maaragta waardi adagan banaanka dhigana markaan waardi adag banaanka dhigto yani maaragta aan gabdhaha ayagana programkooda ku soo saxaado ilaahay waxa ii muuqda anagaba meesha cabsi ku joogno waa hagaag dad badan is weydiinaya adiga sida arintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududayso oo adigoo naftirkaaga u dhaxeeya oo dadka Soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu suura gashay live-kan inaad siiso oo aad dadkan Soomaaliyeed aad arintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay yimaadaan waxaad garatay ma yani subaxii hore markay yimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay ani iyo wiil kale Soomaali ah iyo qolo kale ayagana oo Nigeria iyo Jazul Qamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka hayo dhanka Soomaalida aniga haayo oo yani wax walba yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa programkan inaan sameeyo hadayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in Soomaalida inta ku dhibaataysan يعني ما عرفت أو لساعد ما أنت تجري عند تساعدين ما عرفت أنا أقول له هو برنامج الله برنامج كاربتان إن إدين سمعيه أو وحلقوا بكرة عاد خبتان وحقاق هذا طول ما حصلت هاي إن كنت داشيد مر والبا دت كان صوماليات إن دت كان الجراعة يو دت كان كرودي باتة السنة حانت الدراسة يو إن إسكود دايس إن تفوضيسو dad badan ku daawanayo waxaan rajeynaynaa in baahiyahooda ay markaas qof walba bulshada Soomaaliyeed ay wax ka qaban doonto rajeynaynaa yaa kala dhiban oo muddo jooga xeradan aad natusi kartaa waxa jiro dad fara badan oo muddo la laayahay jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkan jooga horta wallahi billahi hadda nugaan oo kala markaan kaaga waramo anugaan wuxuu joogaa muddo yani ma aragtaa sanadii 3 bilooda ilaa hadda asagoo wali ma arag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaaca lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yani qarsoodiga kaaga soo qaadayo
dhibaatooyinka badanaa meesha lagu hayo anaa video qarsoon kaaga soo qaada kama awood inaa video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar aan ku sameyn bal ii dhib aan la hadle isagaan doonaya inaan la hadlo yani halo walaal magacaa halo ها مقعاه هلا مر على عوالة لا داول مش محن شوى سنة كدوة هذا وين شوى مال جاينا بير على لا دعاء تلفون وحن قرعدنا ملي ehelkaaga xagee joogaan adi magaaladee ka timid markii hore حكيم هذا Ethiopia ka xagee gudba bal ka waran adiga noloshaada haatan iga sheekay maxaad cidi u wici weyday muddaad halkani joogtaa cidi way ku walwalaysaa مش هذا السنة دي سدح بلدوان شوى مش مال جاينا بير على لا دعاء هذا وحن عنتم عنو هدي هبين بولي قراعة مركو واسيد سنيو magacaagu saddexan ii sheeg نور علي عوالة nuur cali cawaale marka maxaa lagu xijiyay lacagta maxaa lagu xijinaya 8,000 iyo 300 lacag dhan oo dollar Ethiopia ilaa iyo Libya imisa ku timid Ethiopia ilaa Libya imisa ku timada ha ma ogi taa ma ogi soo adiga lacagta ma bixin waxba ma bixin hal riyaal ma bixin waa iska soo lugays intaas ma Suudaan lugaad ku tagtay inta waan soo socdoon waa gartay waa tahay waa hagaag marka 8,000 haatan laga rabaa soo seexanaa jirta ya maxaad raday kaamirada wajiga ku aadi okay haye maxay tiri marka hadda maxaad dalbanaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil maxaad ka dalbanaysaa waxaan ka dalbanayaa in meeshan ummadda islaamka ee meesha ku wada jirto dhammaanteed in laga wada saaraan ka dalbanayaa waa tahay waa maasanta ilaahay idin saqiro waa hagaag waa tahay waa hagaag ha waxaad ii sheegtaa gabadhii oo shalay videogeeda la soo dhigay la garaacay lacagteeda waa la bixiyay ma la sii daayay waa la bixiyay ha dhammaantooda gabadhaas waa la sii daayay wiilasha kalena labada wiil kalena labada wiil kale ma la sii daayay lagu dhigan yahay waxyar ka hor ayaga dhan way madluunsan yihiin waxyar ka hor waxaa la qaaday dad oo yani maaragtaa Yurub aaday dhammaantood marka nin waxay leeyihiin maanta dhan ayaga dhan way faraxsan yihiin anaa waxaan dhahnay oo dad saasa ila soo xiriiray dadkaas inay idin saacideeyaan rabaan anigana waa ku faraxsanahay maanta intaas idin sameeyay dhammaantooda sidii hal meel isugu wada keenay wili waxaan yahay yani maaragtaa hadii bari markii carabta timaado ku sheegto in aniga aan video duubay haddaba ayaga u taalaa dhammaantood waxaasna waa kala hadlay sidaas darteeda aniga arrintan u sameeyay waa hagaag waa mahadsan tahay gabadhii waa baxday oo lacagtu waa laga baxshay gabar kale jirtay oo iyadana oo hooyadeeda ifa joogto iyadana ma la sii daayay maya gabadhaas anaga ma ahan waa xerada maan xero kale waa iyadana laakiin waan raadi karnaa hadduu ilaahay yidhaa laakiin gabadhii kale hadda lacagteeda laga bixiyay oo lacagteeda weli oo yani maaragta aan lasoo qaadinaa joogto laakiin iyada laftirteeda oo kula hadalsii karaa hadda gudaha isaga jirtaa way raaxaysanaysaa hal su'aalaan rabaa dadkaas inaad ii weydiiso inay ma doonayaan waddankooda inay dib ugu noqdaan in dawladda Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku celiso ma rabaan bal su'aashaas ii weydii hal mar سؤال ما دونيسان إن يعني ما رتا ماشان لقى سارو أو يعني دب ودك إني لو علي
أكون ما أدعي يا أولاد mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha ها هذا وكو ديبي كرا وكو ديبي كرا xagee ka timid walaal الو xagee ka timid walaal Ethiopia kiimaada walaal meesha sanad baan joogaa walaal haddii aad heli kartaan waddankaana inagu celisaa walaal waan rabnaa waan rafaadnay waan dhimanay walbaan dir bay nagu tumaan walaalo waddaad wax noo qaban kartaan dad islaam haddaad tihiin walaalo meesha naga soo waxeeya walaalo waan dhimanay dir bay nagu direen waxba ma cunno maalin alla keena qoraada nagu direen qoraa xadadka yaale maanta xadadka meesha yaale adeega ma saacan karo feeraha xanuunaya walaalo waan doonaynaa inaan ugu daganka annaga ku noqono waan doonaynaa haddaad dad islaamka tihiin meesha laga soo furto allo walaalo dhibanay ma noolin waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay ati midaada kale hadda waxaan banaanka usoo bixiyey gabdhihii banaanka usoo bixiyey waa codsaday in lasoo bixiyo gabadhaan hadda ujeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa meesha ay ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani maaragtaa sanad iyo 6 bilood marka yani maaragtaa xataa ma istaagi karto way gariiraysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan nala joogto aa ujeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan soo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareeso haye maamadii ugu dhib kada wajiga dhaaf caadi ahaato maama السلام عليكم وعليكم السلام ماما ساتحي oo fiicanayo meeshan aan ku dhibaataysan anagoo caylo ah oo meeshan maaragtay ilaahay amarkiis baan ku nimidnay hadana lama siiyo quraana lama siiyo waan ku dhibaataysanahay dhibaatada ugu xun baan ku jirnaa haddii aad wax noo qaban kartaa noo qabta hooyo goormeeti mitalkan goormeeti mitalkan waxaan imid bishii tobnaad baan bishii tobnaad haye hooyo magaalada ka timid ilmaheeda waaye yaa hooyo magaalada ka timid waxaan ka imid boosaasan ka imid hooyo ilmaha adiga ma dhalay ilmaha haa anaa dhalay haye ka wara xaaladooda hadda way fiican tahay wax dhibaato ma qabaan de waxa weeyaan ilmaha iska nooloo iska bilaa waxbarasho ah mustaqbalkoodii waa dhumay mooyaane way iska roorooyihiin hadda iyaga wax waa la siiyaa kolley annagase waxbana lama siiyo hooyo sidee halkan kusoo gaartay adigoo carruurtaasi wada sidee liibiya ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay maaragtay kuwo maaragtay waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan maaragtay aad ka shaqaysato ood ku noolaato nolol fiican ku gasho adyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeen kadib waxayna geeyeen masar baan idingeynayna ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeenna waxay nagu soo dulaceen waxay yidhaaheen intaasoo lacaga laydinka rabaa kuwaasi xaggee idinka soo kaxeeyeen ma boosaasa idinka soo kaxeeyeen may boosaasa nagamay soo kaxaynin xaggee idinka soo kaxeeyeen annagaa ka nimid xaggee idinka soo kaxeeyeen kuwaas boosaasa annagaa ka nimid kuwaas xaggee idinka soo kaxeeyeen hooyo waxay naga soo kaxeeyeen Itoobiya naga soo kaxeeyeen carruurtaada ma la hadli karaa nacam Itoobiya markay naga soo kaxeeyeen waxay yidhahdeen ma la hadli karaa oo ku dhaca la hadal deecaado dhib ma laha Hello. Hello. ها سيادتها walaal nabad walaal magacaa waxaa la yidhaha khadra daahir xaggee ka timid qadro
ها كورن نولوشينا كورن والله نولوشينا هذا ودباتي سنة العيان اللي قرأ ماشي أنا كل دباتي سنة هي إمسان اللي قربها waxaan laga rabaa nafarkiisa dadku inay 500 waa maasan tahay gabadha xanuunsan igu dhib gabadha xanuunsana kale hol hello waxa isaataha walaal ma fiican tahay fiican wallahi walaal see lagu hayaa lagu hadlan bay xanuun jidhko dhan bay xanuunayaan marka haye wax dhibaato lagu geystay miya jiraan oo jirdil iyo waxaasi ha walaalo dayda waa la diraa walaal adiga xagee ka timid markaaga hore anigu Ethiopian ka imid magacaagu saddexan hoodo maxaa lagugu daraa hoodo diiri Axmed hoodo diiri Axmed marka meeqa sana joogtaa hoodo sanadiyo laba bilood hadda lugaha sidee wax ka yihiin sidee lagu hayaa bal ii sheeg lugaha marka raxmka wallaha gariirta kama socon karo xadan siraa kacwan gariiraya gabigayga midkayga xaaladayda arkaysaa wala suuliga ma tagi karaya xitaa waa gartay الله كعافية هذا الله كعافية إن شاء الله أمة الصوماليات دولة الصوماليات وأنا وحنا رجينا إني باقي الجيران إني جاري دونا بريالك يقولي إن شاء الله وحا إيشك مقالة جوجان تتكن مقالة جوجان والله أبتي هذا يعني ماشي دوام ومشاعري أنا لفت مال يعني صحراء وهاي ما قرتي هي جوجنو يعني أن جوجنو مال صحراء وحواي ويعني ما رحتها ومقالة كذا وين واحد مقالة وما أنت نود ولقوا مقعابي كرو ما جرت هذا ضمن سنتهي واجبها كسارن وكل دردار ما يواجبها كسارن dadkaas marka la dhibaateynayo ila isku daysid inaad dhibaatada ka qafiifiso waxaad kaloo samaysaa dadka ugu daran oo abti wallahi tiri aniga been kuma sheegayo waxaan sameyn karin waan sameynaa ma dhihi karo umada Soomaaliyeedna uma balan qaadi karo meeshan yani waxa iska la dad Araba يعني أنا أيها وحبا مدامو كستا يعني وحاندا ما ويعني عن سوليدا قلايو حرنما عن سوليدا كو قلايو أنا أغسو بحايو بس ما وحكلو زيادة مداماني مركا قار بريو كان عندي مركي مادان أو يعني عرفت مرة قار قراعة أنا وحاجر ما تضد إيه بلانسن وأنا دتك هذا والله هذا مني لعبت ويسودر عيان بريد دتك اسمت كم إذا يعني ما ركت عديه وسودر وايو أنا مركي يعني ما ركت أمقن يعني ودد يعني أي حد مرة يعني تقدرنا أنا جمرنا ما قررتي. واقرت دتك عاوب حي إمسي جارين تريدو. والله دتك عاوب حي إلا يوحي جاريان بقول سديتهم قفص يعني ما رأيت دتكاس ندو حايستي وبناين ماشي كوميس الراجن إلا يو هذيك وحي العشرة كلها ماين هذه إلا يو ثواني تضوي شو إحساس عملنا نجوجين دتكاس لأنه عدد العك هيستوى وحمير صوت اجتهاين لكن ودتك إن ما أنت وحلو قبض الرباط دتك كان ماشي فليه هذا وجه الدواء تردو دمي قوي دتكان تردو ميبي وحي هذا جاريسا كدواد إلا يو لو بخل يو لحد جاريسا دتك لو حاجرو وأيضا ميركل لو كجرو لكن ماشي هذا يعني وأنا عليه وإن أنت ما قرأته مركا حد لبض بقول وما زاد هل كان فديسو قفكي ما قال قربا والله قفكي يعني ما ركتا لعق سديت كون انتو كفديا وحاله سميا قولنا waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yani qaar Soomaaliya ka yimaadeen qaar jigjiga ka yimaadeen qaabka ugu yimaadeen waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yani ma ragta dadka soo wado qolada dadka soo wadana la soo yani dadkan la soo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad 10 qofood arabna inay idin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagta Liibiya laga diraa xagga markay ka qaataan يعني وحال سو غارسيا السودان markii la soo gaarsiyo qolo kala qabato hadana qolada kala lacag loo diraa waxaan meesha fadhiyo wax maanta 1000 shilin ka soo baxay oo inta jooga ma jiro dhamaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxa lagu keenay lacag $6,000 وهاجاك adiga imisa sana joogtaa halkan imisa sana joogtaa halkan aniga sanadii 6 bil adiga maxay u bixi weyday
aniga yani maaragtaa qaab aan ku baxo yani macnaa ma jirto maanta dadkan yani iga raja fiican qofka imaanayo lacagta dhiibanayo baxaayo maanta yani maaragtaa waxani asaan ku leeyahay nin asiga isxukuma ma ihi waxaan ahay nin yani maaragtaa la xukumo oo la haysto ma garatay waa gartay maanta yani haddii lagu dhaho shaksi soomaaliya liibiya joogo ka shaqeeya haddii lagu dhaho shaksigaas yani maaragtaa niyadiisa ma ahan inuu asiga uu ka shaqeeyo ee xoog yani maaragtaa qasab uu ku shaqeeya waxaad garatay soo ma ahan maanta shaksi liibiya joogo oo soomaaliya oo asiga xornimo haysta ma jiro suudaan soomaaliya joogto oo arrintan ka shaqaysata oo dadka soo wada etoobiya sidoo kale hargeysa boosaaso muqdishona waa sidoo kale soo maaha ha dhammaantooda sidoo kale waay waa hagaag aadaad u mahadsan tahay barnaamijkan aad fududaysay teleefonkaaga waxaan ka soo helay qoysaskii shalay la dhibaateynayey qof ka mid ah qoysaskaasoo teleefonkaaga iisoo diray halkaasaan ka helay sidaasaan kuula soo xiriiray ilaa iyo xalay o dhan waan kula soo xiriirayay inkastoo saaka teleefonka aad iga qabatay waxaan rajaynayaa waxyaalaha cusub iyo dhibaatooyinkan soomaalida dadkan lagu haayo waa dadkeeni inaad doorkaaga aad ka ciyaarto waa dareemi kara dhibaataa ku jirtaa hadda way kaa kala maqan yihiin waa fududaysay dadkan dadka Soomaaliyeed oo dhanna la socdo waxaan rajaynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo dadkan haddii Suudaan lagu celiyo Suudaan ma lagu celin karaa oo hadhow Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suuragal ma tahay arrinkaasi horta arrinkaas suuragal way tahay laakiin qolada haysato waxay tahay haddii yani aniga waan idin awoodaa in macnaha qolada aan si tartiiba aan u dhaho niyo barnaamijkaasaa jiro dadkan lacagtiina waan inaga siinaa laakiin idinkana waxaan idinka doonaa in dadkan yani maaragtaa oo gawaaridooda aa saartaan oo Suudaan aa ku celisaan safaaradda aa ku sintaan haddii inta aan dhaho yani maaragtaa waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yani maaragtaa hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheega aan ku dhihi karin laakiin arrintaas ayagana Soomaali oo yani sidaan oo sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeyaa jiro qoladaas arrintan la kaashana haddii yani ay dhahan waa u wada sheegeena markaas oo ku sheegayna waxa jawaabtaan haween dambe ku soo siinaa dawladda telefonka arrintaas la xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagahaas oo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qolooyinka Liibiyaanka ah dadkan gawaarida in la saaro safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayada safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celiyo dadkan oo sidaad u jeedo wadankooda inay ku noqdaan way rabaan mar kale igu celi wadankooda inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii mar kale aaday oo rabaan war haddii yani maarta intan laga saaro in wadanka ku laabataan ma rabtaan dhammaantooda diyaar u yihiin maanta yani wadanka saaris iska daa maanta diyaar waxay u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabi'iyo diyaar u yihiin يعني ما رأيت كمشي كويس ذاك بدن هذا ضمها سنتهي هذا كأجمع هاد علمية عاو وحمعني ورالو والله لبي تونك بري الصوم كسعد والله العظيم نكي قانا لو دارتاي إننا وقتك إننا على لبي تونك بريبة حل سيرنا وعتابك ليجن بيو بان عباء وحكم الله سيمتر تركي في حساسية وحن شوغا سنة يصدح بلد بن شوغا تركي تسمي يقول انتي والله ساعات كسو وحنكو حساب تما بس بالبلقسي ما دمن مسكتن ما دمن اسمني مجرو باو سocota iyo rajamina toorimay hadii dalkayga lagu celiyo maanta waxaan diyaar u ahay in dalkayga uu dib ugu laabto oo waqtigiga khasaaray aan xurriyadii Liibiya laga qaaday xurriyada dalkayga dib ugu laabto xurriyadaan helo oo baasata walaalaha natiidin naga soo saara meesha iska dhicidiga walaalayaal hada walaalaha natiidin walaalayaal ma sanito ayoola ayati وما سنت ولا ماما السلام عليكم وعليكم السلام ماما هوي مقعا هوي سلمان وي سلمان ليبيا كي متسمانو ان تليفون كجراتي هيغا غاري ولا سو خيلنا كويس
وهاجاج ولا ليال آد ما سنتيين waad u jeedaan dadkii Soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waad u jeedaan qabyaalad iyo qurun wax ma tarayo waxaan yahay dhibaatada haysata ku dhawaad taysan marka sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in hooshoodii la galo haddii suuragal noqoto in la geeyo Suudaan laga fududeeyo Suudaan la geeyo Suudaan safaaradda Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin wadankooda in lagu celiyo ayaa ka go'an in wadankoodii lagu celiyo ayay diyaar u yihiin dad waxa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kulay meel ay joogaan la leeyahay laakiin sida muuqata yarkan telefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay mid kamid ah eheladoodii ayaa telefonkan ii soo diray xaliyo dhan la xiriirayay ilaa iyo xaliyo dhan ayaan la xiriirayay telefonku ma uusan iga qabanaynin maanta ayuu iga qabtay wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameynayo dadkaasi meel isugu keenayo markaan arrintii u bandhigay waxyaalo badan markaan kala hadlay aan u sheegay dadka Soomaaliyeed in dhibaataysan yihiin isaga arrintan magafo hala shaqeysto musii'ooysan la shaqeysan naftiisa waxa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaas ayaa muhiim ah waxaad la socotiin qabyaalad inaysan waxba tareenin reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareenin liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay caruurta sida u dhibaataysan yihiin hooyooyinka sida u dhibaataysan yihiin sida u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaali qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen wiilasha sida Soomaaliyeedna waad u jeedeen wax ka muuqday marka waxa wanaagsan qabyaaladda in la iska dhaafo Soomaaliya isku tashato nabadgelyo